labadani gabdhood waa laba gabdhood saaxiibo ah oo hal fasal isla dhigtaan mar walba way faraxsan yihiin sidoo kale labadani wiil waa laba saaxiibo ah oo sidoo kale ayagana faraxsan ayaga wadada marayaan wiil kamid ah wuxuu arkay gabadhani soo fiirinayay shil ayuu galayba wala saaxiibkiisa ayaa soo kiciyay garabka ayuu soo qabtay wali wuxuu sii fiirinayaa gabadhii saaxiibkiisa wuxuu ku yiri gabadhana aad ay u qurux badan tahay xasuus ayuu galay wali xasuustii ayaan ku jirnaa maalintii xigtay asagoo wadada taagan oo sugaya gabadhii oo saaxiibkiisna uu leeyahay gabadhani ma imaanaysa bixi ay wuxuu yiri sug way imaanay saaxiib way imaatay gabadhii waxa keenay walaalkeedna wuxuu ahaa nin xaasid ah gabadhani muu jeclaan inay jecel samayso maalintii xigtay ayadii saaxiibteed waxay imaadeen meel ay maqaayada wax ku cunayeen sidoo kale labadii wiilna meeshii ay cunto afka isku galgalinayaan way ku dabadayeen maalintii xigtay wiilkii wuxuu soo aaday labadii gabadh si uu u daawado darbiga ayuu soo fuulay ayay telefoon ay ku mashquulsan yihiin asagii uu daawanayaa wali muuqaal ay ku qosqoslaya maalintii xigtay wiilkii saaxiibkiisu wuxuu ku yiri wax yar u sug gabadha ayaa sugaya asagana saaxiibkiisu wuxuu leeyahay waan daanay nagii aan tagnay gabadhii ayaa meesha soo martay wuxuu ku yiri saaxiibka ayaa rabo inuu wax ku siiyo warqad ayuu u soo bixiyay wuxuu ku yiri ha warqadani maxaa waaye kala furo akhri markay saa u furtay waxaaba imaaday walaalkeed warqadii ayuu ka qaaday wuxuuna ku yiri kan markuu akhriyay ninkii ayuu dharbaaxa ku dhiftay saaxiibkiisna wuu ka soo cararay meeshii warqadii meeshii ayuu ku jeexay gabadhina wuxuu ku yiri mar dambe gabadhani kuma arki karo gabadhii ayuu gacanta ka qabsaday wuuna ka kaxaysaday wiilkii asagoo yaabsan ay gabadhiina sii fiirinaysa balse aad ayuu u jeclaaday sidoo kale ayadna way jeclaatay wali way sii fiirinaysa wuu sii jiidayaa wiilkii meesha ayuu ka tagay maalinta xigtay gabadha iyadoo meelaha iska fiirinaysa oo wiilkii raadinaysa ayuu saaxiibta waxay ku tiri maxaa kugu dhacay waxba ayay tiri nabixi sidii ayay kusoo dhaqaaqeen balse labadii wiil midkii saaxiibkiisa wuxuu ku yiri guul ayaan ku rajeynaa kac wiilkii wuu soo dhaqaaqay gabadhii ayuu wadada u istaagay wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan ku tuso gacanta ayuu u soo bixiyay magaceeda ayuu ku soo qoray inuu jecel yahay ayuu tusayaa way dhoolla cadeysay sidii ayay uga soo tagtay meesha ayadoo ka xishoonayso maalintii xigtay ayadii walaalkeed waxay u soo baxeen inay wax gataan ayay suuqa soo aadeen asagana meel ayuu ka fiirsanayaa chocolate laba xabba ayuu walaalkeed u soo gaday waxay fiirinaysaa wiilkii ay jeclaad xabad ayay meesha u dhigi doontaa way u dhigtay kadib waxay ugu talagashay inuu asaga qaato sidii ayay walaalkeed ku raacday way sii fiirinaysaa asagii wuxuu soo qaatay chocolate ayuu qaatay maalintii xigtay wuxuu dhahay hadiyadda ayaan ku wadaa telefoon ayaan ku keenay ayuu yiri way farxadaan ma ay keenta haadaan ku keenay eho telefoonkii ayay qaadatay waxa bilaabatay inay la sheekaysto oo lambar la kala qaato farxad lagu jiro maalintii xigtay walaalkeed ayaa waxa ku arkay iyadoo telefoonkii ku shukaansanayso ninkii kan ayuu yiri telefoonka ayuu xoog uga qaatay maxaa telefoonka dharbaaxa ayuu ku dhuftay mar dambe nin ma shukaansan kartid telefoonka ayuu ka qaatay maskiinta way isku oonaysaa wiilkii wuxuu dareemay gabadhani inay wax lagu sameynayo telefoonka la qaatay balse walaalkeed iyo kuwii guriga ilaalinaya ayaa ninkii qabteen oo dileen ayadii ayaa ku soo orantay balakoonka ayay soo fuushay
maya maya ha sameynina ayay leedahay ha ku sameynina dilinina daaya almaya ay leedahay weli way qaylinaysaa waxay qabataa markaa suxun ayaa loo dilayaa suxun ayay u dilayaan waxay sameyn doontaa guriga ayay gashay baskoolada ee soo qaadatay markii baskooladii lagu dhufan rabaa ayaaba baskooladii kor u riday joojiya ayaa tiri haddii kale waa isdilayaa gadaal u baxa ayuu yidhi gadaal u baxa ayadoo baskooladii isku hayso ayay soo degatay way soo socotaa si ay wiilkan ay jeceshahay ugu badbaadiso soo kac ayay tiri kuwani waa xaasidiin wiilka aan jeclaa ayay iga dileen xaasidiin waaye nakid ayay dheheen nakid car ii soo dhawaad ayay leedahay qof ii soo dhawaan kara male haddii kale waan isdilayaa sidii ayay jaceylkeedii ku badbaadsatay